waa qaybtii labaad ee barnaamijka taxanaha afmeer iyo sheekadii dilaagii isboortiska ahaa Faysal Gujes ee barnaamijkii hore aan ku soo qaadanay qaybo ka mid ah sheekadiisa oo aanu ku soo gunaanadnay taariikhdiisii xagjarnimo iyo habkii argagixisadu ay dadka u dhagri jireen. qaybtan labaad waxa aan ku bilaabi doonaa waxa kale ku dartaa Bashiir Cabdigaras, waxa ku dartaa Yaasiin Cabdibarre, waxa ku dartaa oo kale Muuse Aadan oo gacanta saddexaad anigu aan lahaa. waa 15 qof oo bulshada magaalada Gaalkacyo u lahaa qiimo. waa qaar ka mid ah haldoorkii magaalada, waa indhihii iyo aqligii magaalada kuwa uu u dilay sida arxan darrada. caadiyan amniyaadka argagixisada al-shabaab ee madax jabinta qaabilsan looma sheego qofka ay dilayaan magaciisa iyo abtirsigiisa, maadaama ay suurtagal tahay in dilaaga haddii loo sheego qofka uu dilayo magaciisa ka hor howlgalka inuu isbedelo. balse dilaaga isboortiska Faysal Gujes waxa uu ka mid yahay dhalinyarada magaalada Gaalkacyo, waxa uuna si fiican u kala yaqaanaa dadka reer Gaalkacyo, waana midda u fududaysay inuu si buuxda u garto magacyada haldoorkii uu nolosha dhaafiyay. Faysal Gujes waxaa la oran karaa waxa uu gudbay xayndaabkii bini'aadanimada. waa kan isagoo sharaxaya magacyadii qaar ka mid ah jilib culustii magaalada Gaalkacyo ee uu xaqdarrada ku dilay iyo cidda ku caawisay dilkooda. maxuma aniga ka Faysal ahaan Faysal Axmed Bashiir oo Faysal Gujes waxaan gacanta koowaad aan lahaa 15 qof. inta hadda aan ka xasuusto waxa ugu horeeya Mukhtaar Jabsade. ha oo ahaa xilku hayay madrasaf ma xasuusto. waxa ku xigay Allah uu naxariiste Abdullaahi Faray, Maxamuud Faray. waxa kale oo ku dartaa Jaamac Yuusuf, Cabdiqaadir Jaamac Nugaal. waxa ku dartaa Dhuud Yuusuf. waxa kale oo ku dartaa Bashiir Cabdigaras, waxa ku dartaa Yaasiin Cabdibarre, waxa ku dartaa oo kale Muuse Aadan oo gacanta saddexaad anigu aan lahaa. wuxuu ahaa gudoomiyihii Land Hormar oo aan ku dilnay santarka. Roobla Awle Cirfe iyo Xasan Weyne. labada kale macdal asaf ma xasuusto, laakiin eriyadooda waxay kala ahaayeen nin aan ku dilay xaafadda Israac wadada Caasha Gelle. qofka kale oo dhiman waxa weeye Cabdiqaadir oo u shaqayn jiray hay'adda DRC oo aan ku dilay Al-Harame gadaasheeda. howlgallada waxa inta badan ila fulin jiray Sahal iyo Salmaan. howlgallada waxa gacanta koowaad baan lahaa. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. argagixisadu waxay cadow ku tahay diinta Islaamka, waxay bulshada kala dagaalamaysaa aqliga iyo aqoonta intaba. waxaana tusaale kuugu filan sida ay u bartilmaameysanayaan dadkii indhaha u ahaa bulshada. waxa ay doonayaan in ummadda Soomaaliyeed lagu soo reebo inta garaadka iyo garashada ka aradan. Faysal Gujes dilaagii isboortiska ahaa waxa uu barnaamijka afmeer sharaxaad ka siiyay qaybo ka mid ah dadkii uu dilay iyo sida dilalkooda loo soo qorsheeyay. inta qof ee dhagrahaasi foosha xun kala qayb qaadatay. waxaa kale oo kaamirada barnaamijka afmeer uu geeyay qaar ka mid ah goobihii dilalka uu ka fuliyay. waa kan isagoo sharaxaya sidii ay u fuliyeen dhagartii Allah u naxariiste ex-Colonel Labadoon Cabdullaahi Faray iyo askari ilaalo u ahaa oo qaraabo dhow ahaayeen. marxuumiintaasi oo Faysal iyo saaxiibkii Sahal ay gacantooda ku dileen xilli ay ka soo baxeen masjidka Taqwa ee xaafadda Israac 30 Julaay 2012. waxa uu ahaa dil gaadma ah oo ku qotonta dhagartii fulaynimada ku salaysneed ay dadka ku leen jireen. habeenkaas waxa ahayn aniga Sahal oo markaas bacda casar amarka uu nasiiyay Maxamed Axmed Cali Cawk in la soo dilo ninkaas jeeri Abdullaahi Faray in la soo dilo. wuxuu kale noo raaciyay ninka inuu wato nin staff ah. صح
at the moment go-aan waxaan qaatay aniga sahal inaan howlgalkaas aan soo wada fulino alxamdulilah rabbil caalamiin aniga sahal keliya ahayn laba nin baa ku soo aadnay sahanka iyo ninka inuu meeshaas joogo oo maqrib walba uu ku tukado xogteeda waxaana siiyey maxamed axmed cali cawke jeeri baana siiyey alxamdulilah rabbil caalamiin wixii dhici lahaa waa dhaceen ninkaasna gacanta koowaad anaa lahaa marka uu masaajidku ka soo baxay salaada maqrib way soo baxeen waxay ku soo baxeen 4 nin 4 nin oo soo baxeen markaas maana garanin qofka saxda uu yahay ilaa tilmaamtina la siiyay oo ahayd labada nin oo guriga wadada saa ugu leexanaysa labadii 4 nin si uu shaqaysanay laba nin waxay qaadeen wadada dheer oo aad dhankaas siinay labadaana saan u soo leexdeen luuqa ninka qoriga wata marka arkay sahal baan amray waxa ay ninka qoriga wata adaan kugu ogaa ada moment go'aan waxaan qaatay luuqaas inaan odayga uga hormaro intuu sagalisi qof wadada gudbay oo kale markuu luuqa u soo galay staafkina uu soo luuqa soo gaarin baa xabadii koowaad ku dhuftaanay waxaan uga dhuftay madaxa sahal isla markii xabadii ee dhacday wuxuu xabadii ku bilaabay staafkii oo rabo aniga inuu toogto qorigii qaadashada uu kor u qaadanayay staafkii bobsi aniga at the moment luuq marka meesha ka dhawaa waan ka dus sahal qoriga wata wuxuu si qoriga hadaa sii wadatid taargad bay ku noqonaysaa wala dareemaya ifan hada qoriga qori dawladeed waa serial number buu leeyahay tixraac waa lagu soo galaya hadduu tixraac ku soo galo ama iibsatid haddii aad gadatid tusaale ahaan oo baahidada ku asturatid tixraac dawladda sameynaysaa waxaana waa hubkana dawladda bay u tirsantahay ninkan x korneel u ahaa x xildhibaanna waa soo maray oo golaha deegaanka alxamdulilah rabbil caalamiin hawsha sidii bay noogu fushay qorigii sahal soo gacantii ku wada wuxuu ku tuuray xira ari saas u noqon taargad iyo tixraac reference oo anaga dib loogu soo noqonay dilkaas ku dhaca beydka ilaahay oo ummadda muslimiinta cibaado iyo gudasho waajibaadka rabbi ay u soo aadaan ayaa halka koowaad ay dadka ku gaadaan taas oo ay gagixisadu uga gol leedahay in dadku cabsi ay uga go'aan masaajidada rabbi dilalka uu sida qotada dheer uga warramayo qaabkii loo fuliyay iyo cidda isaga la fulisay waxaa ka mid ah dilkii Allah u naxariistay xildhibaan Siciid Xuseen Nuur oo loo garan og yahay Siciid Lugool oo ka mid ahaa mudanayaashii hore ee baarlamaanka Puntland iyo askari ilaalo u ahaa kuwaasoo salaadii maqrib kadib lagu dilay masjidka Abu Hurayra 8 bishii May 2015 bal haynoo sharaxo sida ay u fuliyeen dhagartii ekis Allah u naxariistay xildhibaan Siciid Lugool iyo askarigii ilaalada u ahaa galab maqrib ahayd waxaan howlgeliyay maxamed axmed cali cawke yiri ninkaas waa in la soo dilaa staff buu wata jeeri wuxuu ahaa Siciid Lugool sahal baana markaas la soo siiyey oo loo soo sheegay سهلنا أنو حقت إلى وذاك ابنك سلا دليا بلا سود دليا يسأل الله سعيد لقار استاف بنا وتا سيد سمين كرنا محا حلا وحارنك هدو استاف وتا استافك مسنك نك هذا هو اللي سيد ساب تيهار أو كلا قيب سنة باتنا أو كلا قيب سنة staff kan anigu halaba maalintaas waxa ahayn 4 qof hadda aan xasuusto waxay ahayd aniga oo staffka aan gacanteeda aan ku dilay sahal oo ninka masaajidka inta kula tukaday oo dilay Siciid Lugool iyo Salmaan oo taagnaa manaaradda masaajidka geeskiisa wuxuu qabanayay ifan hadduu sahal khalkhalo inuu asaga hawsha u dhamaystiro ama ninka badbaado ama qof kale oo saddexaad uu soo baxo waxa kale oo nala socday magaciisa iga maqan waa ninka bamka tuuray markii dadka inagu soo yaaceen maalintaas galab iftiin ahayd
salaadii maqrib baa laga soo baxay waa markii ugu horreysay galab iftiin ah oo dadka inoo jeedaan hawlgalkaas sameeyaan wuxuu ku dhacay masaajidka ugu horeeyay maqribkii baa laga soo baxay kabuhu xiranay staafkin inta ka soo hormaray geeskan soo istaagay anna albaabka kale oo geeskaas ah baan taagnaa hal nin baa la socday oo la dhintay sahal uu sheegay ninkii la dilay inuu ninkan yahay gacanta koowaadna waa asaga u lahaa waxaa dhacday aniga staafkii inaan isku qorsheeyo si kastaba ay u qaadatay ninka staafka ah saan ku dili lahaa waxaa dhacday masaajidka markuu kadinka koowaad oo ka soo kacay oo kabihii uu gashtay oo sac uu kacay oo madaxa uu kor u qaaday sahal baa wuxuu sameeyay xabad koowaad ku dhuftay wuxuu uga dhuftay madaxa xabadii koowaad markuu madaxa uga dhuftay at the moment go'aanka aan qaadano waxay ahayd xabadda marka aan bilaabo staafka qorigiisa kor u qaaday go'aankeenii waa ka dhabeynay ninkii gacanteedii staafka ku dhintay aniga laba xabadood baan ku dhuftay staafkii sidaas bayna labadooda ugu garan waxaa jiray in rag markay ordeen aan ordnay rag naga soo daba tagay oo na soo ceersaday ninka bamka tuuray magaciisa aan xasuusan bamkii uu ku tuuray oo ahayd raxad reeb oo aan la ogaan meesha aan ka baxnay iyo inta aan wadano hubka siisu ogaan waxaa dhacday sidii waa hawsheenii aan ku fushanay hubkii waxaan ku wareejinay maxamed axmed cali cawke waa mar walba howlgal la qabto hubkana noo keeni jiray nagana qaadi jiray dhammaan dilalka ay geysteen kooxdan ka koobnay 5 dila ee uu horjoogaha u ahaa Faysal Gujis waxaa amarka ay ka qaadanayeen Maxamed Axmed Cali oo loo garan og yahay Cherry kaas oo ahaa horjoogihii guud ee howlgelinta iyo tashkiilinta dhalinyarada u qaabilsanaa waqooyiga magaalada Gaalkacyo ururka argagixisada ee Al-Shabaab allaha u naxariistay Dudu Yuusuf Jiile ex isuduwihii wasaaradda haweenka gobolka Mudug oo dhashay adeeradii la dhashay aabihii iyo awowgiis ahaana Dudu walaalkeed allaha u naxariistay Cornel Jaamac Yuusuf Jiile qalay ex taliye ku-xigeenkii guud ee laanta hubka iyo rasaasta ciidamada Puntland ayaa ka mid ahaa dilalka bini'aadantinimada ka baxsan ee gacantiisa ku geystay kuwaas oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo sababta ku kaliftay inuu dilo ayeediis adeeradiis dhashay oo uu garanayay waxa uu dareemay marka uu dilkeeda geystay lacagta uu ku qaatay iyo qaabka dilkaasi loo soo qorsheeyay ayuu barnaamijka Afmeer uga waramay dilkii Dudu Yuusuf waxa uu ka mid ahaa dilalkii uu ku qaatay lacagtii ugu badneyd ee isaga iyo kooxdiisu ay dil ku fuliyaan dilkaas isaga oo kaliya waxa uu ku qaatay lacag cadadkeedu tahay $350 gacanta koowaad halka gacanta labaad iyo hubiyaha meydka Salmaan Faris uu isna ku qaatay $150 waa dilka kaliya ee aan marnaba xasuustiisa ka go'in sida uu isagu Afmeer u sheegay Dudu Yuusuf Jiile waxaan ku ahayn 3 nin saddexda nin waxaan aniga iyo Ibrahim Sidow iyo Salmaan Maxamed Suleyman markaas howlgalka aan sameynayo maqribkii salaada maqrib baa la adimay oo xilli afur ah arbadana waxa dhacday inaan leela socodsiin waxa dhacaya iyo qofka aan u socono maqrib casarkii markaa tukanay oo xogtii la soo siiyay toos baan u soo baxnay 12:49 daqiiqo hawsha loo socdayna waxa ahayd in la fuliyo maamadaas in la dilo Dudu Yuusuf oo amiirkan ugu amray in la dilo gabadhaas amar uu bixiyay baana lagu fuliyay dilkaas waxa ahayn 3 nin Maxamed Axmed Cali Cawke oo loo yaqaan Cherry ka baxshay waxa dhacday waxa ahayn 3 qof waxa dhacday Ibrahim Sidow inuu meesha goobjoog ku ahaa Salmaanna uu goobjoog ahaa ana ninkii gacanta lahaa aan ahaa qofka la socdayna ay ahayd Dudu Yuusuf Jiile oo caa'ila ahaan ani ii xigtay
waaridna ii ahaa maxay ku wahay ayay ii ahayd aabahay wuxuu u ahayd eedo ilmaha ayada ee dhashay iyo aabahay ilma adeer wey laba walaala kala dhalay iyo qayb dhashay ciyaalka iyadoo dhashay iyo aabahaaday waa ilma adeer laba walaala kala dhalay Bashiir على جيل يعبد على جيل. هي صدق المساج قالوا كلا هاي. شغله وح أقول لهن أنا قاعدان قعدت فلون وياه إنه سلمان فليه قعدت كوبات. إبراهيم سيدنا وعاء من حبابي قذف بعد عي. وبوسك إبراهيم سيدو وحب حي سلمان ومش سيجوي وقب جوعها. وهو بيني قفكي يوسف إن دمتي إن النوشة. وحكول علي waxaan ka imid aniga dhanka gobolka baan ka imid Salmaan wuxuu ka imid gurigeeda gadaasheeda dhanka qorax u dhac wuxuu ku yaalaa gobolka gadaashiisa Garsoor Ibraahim Siidona wuxuu taagnaa luuq xaggaas ka soo baxa anna dhabarkeedaan ka imid assalaamu calaykum baari wa calaykum salaam tiileysay anoona sii fiirin baan laba xabadood ku dhuftay وجهي وأنا تلكي إلى هذا أنا مسكح أنا كقول لوق يقول ريا ما كبح وادنست إبراهيم سيدو بوس وتجنب كالوري سلمان اسكتيني وضد مري الله ناك بلد ماشي لسوسة سيدو بين هوش كفش لا لا في الدين تدريس قبل يجي سلف وأي أوطة وكا ما قرن يسألوا إنه بيت أحد أو إسلام كي أب هي ده صح هي ده أبها إدريس ما قرن يس وقرني حقوق اللي فيها مركز أمر باليسي أمر وقاضش بريشر نوع إسحنا markaas in fikirkiisa khadanaana oo fikir khadan laga dhaadhiciyana waa ah oo sida hadda waxa uu kala garanayo hadda wax kala dhigayo uma kala dhigina dhalinyarada xulbana waa dhacay waxa la siiyay $350 gacanta koowaad ee halka $50 gacanta labaad wuxuu qaatay gacan labaad ma jirin xabad kor buu reeday ya xabad kor reeday Salmaan صح wuxuu qaatay asna wuxuu qaatay $150 iyo $100 oo ah hubintii waa taariikh madow oo qarnigan lagu arkay falalka arxan darrada ah ee argagixisada al-shabaab ka geystaan geyga Soomaalida gaar ahaan gobolka Mudug kuwaas oo muujinaya in argagixisada al-shabaab aysan aqoon ehelnimo iyo xigaal toonna dila Faysal Gujis manaxii qaybta ka ahaa kuwii gumaaday dadkii aqliga u ahaa bulshada magaalada Gaalkacyo waxa uu afmeergeeyay qaar kamida goobihii uu dilalka ka geystay waxa kamida goobaha aan dilkooda soo qaadan doono madaxii kastamyada maaliyadda ee gobolka Mudug ekis allaha u naxariistay Xasan Cabdullaahi Hiraabay Xasan Weyne oo lagu dilay Hotel Ar-Raxma oo ku yaala xaafadda Garsoor 18 Oktoobar 2019 waxa kale oo aan soo qaadan doonaa goobtii lagu dilay ekis allaha u naxariistay Cornel Jaamac Yuusuf Jiilay Qalay oo ahaa awowgiis oo abti koowaad u ahaa adeeradiis bahda afmeer waxay idinka raali gelinayaan muuqaalada goobaha oo dhaqdhaqaaq sameynaya sabab la xiriira kaamirada oo gacan lagu hayo balse ay muhiim noo tahay inaanu idinla wadaagno xogta muuqaalada goobaha soo soco albaabkaas ka soo gashay ninkuna xaqaana u soo jeedo gadaal waxa iga su'aala ninku wuxuu ahaa Xasan Weyne Soomaa ninkii haysta kastamka maaliyadda degmada Gaalkacyo albaabkaas ka soo gashay oo iribanaanka dabadeed basolada laba xabba ku dhufat albaabkaas ka soo gashay markii hal kameraysa xabada raacsat dabadeed isagoo xagee tagnaa halkaas u sii jeeday tarmuus shaah xagee ka baxda marka ganjeelka
kadibna luuqaasan ka sii baxay jeeriyo meesha taagnaa oo jeeriyo basaladu dhibtay oo kula socday marka horena halkan waxa lagu dilay jaamac Yuusuf Jijiile dadan waa garsoor wadada guureeye guure hotel guure haye dukaanka gudihiisa mi ku jiray banaankiisa dukaankan gudihiisa ayuu ku jiray sahal baa wuxuu ku yiri kookayga iib gudaha magaciisa laga sheegay jaamacow okay aduu xagee taagneed haye basaladuna waa ku raacsanay waaya xagee kaga ruftay xabada wajiga kaga ruftay dabadeed yaa jooga dukaanka luuqaasaad ka baxday okay luuqaasaad ka baxday dabadeed sahal wadadaas ku laabtay waa jaamac Yuusuf Jijiile waa xaafadda garsoor wadada hotel guure amniyaadka argagixisada al-shabaab u qaabilsan dilalka madax jabinta waxa qaanuunkooda dhagarta ka mid ah in aan la caadaysan wadashada hubka gaar ahaan bastooladaha waxa hubka ay dilka bulshada ku fulinayaan lagu siiyaa goobta uu markaasi dilka ka geysanayaan kadib markii ay soo dhamaato xogta sahanka iyo wiidada ee dhagarta dilka kadib markii ay dilka geystaan waxa laga qaadaa hubka goob aan ka fogeyn halkii dilka uu ka dhacay maxay tahay sababtu kooxda uu horjoogaha u ahaa Faysal Gujis ee ka koobnay 5 qof waxa kaydiyaha hubka u ahaa Idris Maxamed Afyare oo isagu qudhiisu dilal arxan darra ka geystay magaalada Gaalkacyo isla markaana dukaan la ahaa waxaana ka soo qaadi jiray jeeri oo dhammaan jarimooyinkii ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo furo u ahaa wuxuu yiri hadii hubka lagu arko reference baan noqonaysaa ama wada tixraac lagu helayo sidee ku noqonaysaa inuu dad baadishay dad baan dilay oo gacan ku dhiglayaan oo dad leeyahay sidee hubka leeyahay ka qaadi karaa waa ko lamida labaad sidee Gaalkacyo qof uu talooga shaqeyn karaa magaalada ma wada bahay ma xuma waxaan qof da'yarta ah oo dhalinyarada ah mise qof weyn hubku waa wadan karaa gobolkana waa laba xuduud buu kala lahaa oo sida hadda nabad u tahay oo la isku dhaxgalo bulshada isku dhaxgashay ma ahayn waxa jirtay waagaas xuduudaasna lama gali jirin ayagana lama soo gali jirin okay maadaama dhalinyaro aan nahay hubna lagu arko qof ugu horeeyo su'aasha ku weydiinay waa waalidka yaa hubku wadataa maxaas u soo qaadatay okay midda labaad qofka aad meherada wada fariistaan ama nin askari ah markuu ku arko oo dhalinyaro ah oo waliba teenage oo da'da 18 ku jira ama da'da 16 ama da'da bistoolad wata suspect baa galay okay saasa marka wax ku noqonaysa reference la helay si reference-ga aan loo helin waxa loogu talagalay inaan la ogaan oo ay noqoto hawsha unknown target oo ah waxa aan la aqoonsanayn suspect-igu koowaad xakaas ku dhalanaya si marka reference aan loo helin hubkana laga xareyn jiray okay hal xareeyo howlgalka labaad markii la aadayo baadana noo keeni jiray Maxamed Axmed Cali Cawk waxaana loo dhiibi jiray Idris Maxamed Afyare shabakadeeda 2008 xilligii dilalka madax jabinta ay ka bilowdeen magaalada Gaalkacyo ilaa 2012 waxaa dilka gacanta koowaad ay kooxda argagixisada ku qaadan jireen 8 milyan oo shilin Soomaaliya oo hadda u dhiganta wax ka yar $250 laga soo bilaabo 2013 ilaa hadda oo ah 2021 waxaa dilalka gacanta koowaad ay ku qaadan jireen ugu badnaan $350 halka ninka isku qabanaya shaqooyinka hubiyaha meydka iyo sahanka iyo wiidada uu qaadanayo lacag aan ka badnayn inta u dhaxaysa $100 ilaa $150 sidoo kale waxaa ka mamnuuca argagixisada al-shabaab in lacagta dilalka lagu qaadanayo la iskugu shubo adeegyada shirkadaha isgaarsiinta sabab la xiriira in aan la helin wax tixraac maaliyadeed ah waa kan mar kale horjooga Gujis oo arintaasi sharaxay Faysal ahaan u hadlo oo team leader-ka ah shakhsi ahaanteeda markaan gacanta koowaad leeyahay waxaan la siin jiray waqtigaas lacag 8 milyan ah
waa 2010 2012 2009 intaas 8 milyan marka waa gacanta koowaad laakiin kuwa kale waxa la siiyo xilligaas wixii ka dambeeyay dollarka waxa ahaayeen $300 ala gacan koowaad marka qofka gacanta labaad leh kulay gacanta labaad inkastoo aan xasuusan laakiin qorsho wuxuu ahaa dilka koowaad muhiimadda waxay gacanta koowaad oo 8 milyan ah 8 milyan oo shil Soomaaliya oo waqtigaas joogta xilliga 2012 qofku markuu gacanta labaad leeyahay waxay ahayd 3 milyan iyo bar 4 milyan 2 milyan gacanta labaad 2013 wixii ka dambeeyay maxaa wax ku qaadanaysaa 2013 waxa la qaadanayay lacag $300 oo cadaan ah sababta hadii sahal lagu soo nin dhalinyarana aad tahay tixraac baa ku soo galay isagoo amiirka uu sheegay oo yiri wax sahal oo ku shuban kartaan ma jiraan markaan weydiiyo sababta kale lafta maxay tahay amar qaata tahay buu jawaab wixii lagu faro yeel wax su'aal ah hay ugu soo celin sidii bayna hawshu inagu socotay aan ku wadan gacanta labaad $150 hubiyaha meedka waa $100 shabakadeenna kuwa kale ma ogi waxa la siiyo dalalka staafka wata markuu qofku staafku u yahay gacanta koowaad baa lagu xisaabinaya oo ninkaa wuxuu qaato baad la qaadanaysaa ilaan adamo manta hal mar baa wuxuu wada sameyseen hadduu kali yahay oo tusaale ahaan aniga aan gacanta aan leeyahay waxaan qaadanayaa $300 markaas in daayarna waa taqaanaa lacagna la tusay fikir khaldan laga dhaadhiciyay wax walbana waa laga samaysan karaa okay wax walba dhaca fikirka khaldan laga dhaadhiciyay baa sababteeda lahayd toddobadii habeenimo dabayaaqadii sanadkii 2020 ayaa ciidamada booliska magaalada Gaalkacyo ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan xilli horjooga Faysal Gujis uu joogay gurigiisa maxaa sabab u ah in min loo qabto isaga iyo kooxdiisa waxa uu arintaas u sababeeyay tixraac baaritaan iyo dabagal waqti dheer qaato ee laamaha amniga booliska gobolka Mudug ay ku soo qabteen shabakad ka koobneyd 6 dhalinyaro ah oo iyagu dilalka bilaabay 2017 sida ay sheegeen qaar ka mid ah saraakiisha nabad sugidda hay'adda BC ee Puntland shabakadaas yaryarka u badan ayaa iyagu ka hoos farcamay shabakada Gujis uu horjoogaha u ahaa ee dilalka soo bilaabay 2008 balse markii dambe kaydka nasashada la geliyay waa kan Gujis oo arintaasi sharax okay shaqadaas waxay ku bilaabatay waxa la qabtay team yaryar oo la abuuray baa la horqabtay uu jeeray asaasay maadaama anigu aan cuslaanay dad waaweyn aan noqonay team yaryar oo asaasay teamku asaasay waxa kamid ahaa barxad waxa kamid ahaa kulu oo Cabdiqani loo yaqaano Abajonga Liban Jareer iyo Cabdiraxmaan Siigest iyo Munir teamkaas ahay teamka markii la qabtay jeeri waxa galay walaac oo ah tixraac ama la helaa maadaama ciyaalka la qabtay jeeri waxa galay shay cabsi iyo walbahaar arootii la dhaka faarsan oo guriga aan joogo ciidanka yimaadeen aan guriga joogo sidii baan lagu soo qabtay waxay ahayd 7 saac oo habeenimo 7 saac oo habeenimo baa guriga lagu yimid
waxaa in badan oo idinkayda ka mid ay isweydiinayaan maxaa sabab u ah in ninkan Gujisa uu sidan oo dhan u hadlo, maxa uu uga soo dhex muuqday barnaamijka Afmeer isaga oo qiraal ka ah 15 dil oo ah dhammaan dad qiimo u lahaa bulshada magaalada Gaalkacyo. maxaa ka jira in cinqaab loo geystay ama lagu dhajiyay koronto? bal Faysal Gujis dilaagii sportiska ahaa arrintaasi hayno ka warramo. waxay ugu sababay laba waxyaalood. lagu qaraacay may jirdin meel lagu geystay, koronto meel lagu dhajiyay may wax lagu dhajiyay malaha. ciidankan inta khaladka laga aaminsiiyey iyo sida ila dhaqmeen farqi weyn baa u dhexeeya. ciidanka ilaahay daacad ma ah oo cadaalad ma falaan. waa nimanka ii sameeyey caqliyan, maskaxiyan, diiniyan, maadiyan inay ii fahansiyaan inaan ahay nin khaldanaa oo madhab khaldan laga dhadhacsiiyey. ayagu dadaalkaas iyo juhdigaas u maraya maadaama aan nin gobolka u dhashay aan ahay, khaladkana uu qofka uu ka dhaco haddana la ii fahansiiyo inay ahaayeen wax aan sameynay waxyaalo khaldan. ayagoona koronto lagu dhajin, la ijartilin, wax xanuuna la gaarsiinin, oo maskaxiyan psychology ahaan fikirka khaldanaa marba marka ka dambeysa layga tirtiray. taasaana igu dhiirigelisay in aan dambigayga qabto. dowladdana waa u mahadinayaa boqolkiiba boqol shaqada ay hayaan. haddaan ogaan lahaa mar hore waxaan ka mid noqon lahaa ciidamada qalabka sida ee dowladda Puntland. waxa uu ka qoomameynayaa imika oo aad daawanaysaan jariimadii foosha xumayd ee uu ka geystay magaalada Gaalkacyo, waxaana tani ay hoga tusaaleyn u tahay qof walbo ay maankiisa ku jirto in uu ka qayb noqdo ururada argagixisada. kii iska indha tira fariintana waxaa dhici doonta in maalin uu marti ku noqdo barnaamijyada midkan oo kala ah. ugu dambeyn Faysal Gujis dilaagii sportiska ahaa mid ka mid ah dilaayaashii ugu naxariista darnaa argagixisada Al-Shabaab waxa uu cafis weydiisanayaa dhammaan eheladii marxuumiintii uu dilkooda ka qayb qaatay, kuwii uu caawiyaha ka ahaa iyo kuwii uu gacantiisa ku dilay, qaraabadiisa iyo dowladda Puntland. dadka aan dilay ehladooda iyo qaraabadii ma mudna horta in la cafiyo, laakiin waxaan ka codsanayaa ehladii iyo qaraabadii ay marxuumiintaas ka dhinteen oo ilaahay gacantiisa ku sababo fikir khaldan lagu shubay ee ku dhaceen wax walba boqortooyada ay dhaceen inay cafiyaan. 22 Abriil ee sanadkan 2021 ayaa dilaagii sportiska ahaa Faysal Gujis iyo shabakadiisii la horgeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolada Mudug iyo Cayn ee Puntland ee fadhigeeda magaalada Gaalkacyo. waa kan dhamme garsoore Cabdiwali Maxamed Maxamuud oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolada Mudug iyo Cayn oo ku dhawaaqaya xukunka shabakada horjoogaha u ahaa Faysal Ahmed Bashiir Faysal Gujis. bismillahir rahmaanir rahiim. xukun maxkamadeed maanta ay taariikhdu tahay 22 bishii Afraad 2021 waxaa fariistay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida Mudug iyo Cayn oo fadhigeedu u dhan yahay, waxayna u fariisatay kiiskii galdacwadeedkii ciqaabeedka ahaa ee loo haystay eedeysanayaasha kala ah: 1 Faysal Ahmed Bashiir Gujis ina Mako Sheekh Suufi 31 jir ah ku dhashay degmada Gaalkacyo, shaqada Friyaamo. Sahal Cabdullaahi Maxamed Shaama Cabdiraxmaan ina Boosteeyo Maxamed Weheliye 32 jir ah ku dhashay Laanmadow, degan Gaalkacyo, shaqada Darawa. Idris Maxamed Afyare ina Dahaba Maxamed Ibraahim 25 jir ah ku dhashay Muqdisho, degan Gaalkacyo, shaqada Dukaanle. Salmaan Maxamuud Saleemaan Cabdulqaadir Alfarisi ina Sonkorey Aadan Xasan 26 jir ah ku dhashay Baydhabo, degan Gaalkacyo, shaqada Foorno Rooti.
jaamac muriidi xuseen maxamed ina batuulo axmed maxamed 20 jira ku dhashay buulo mareer degan gaalkacyo shaqada bajaajle asbaabta xukunka markay maxkamaddu akhrisatay oo dhageysatay doodii xaaliyaha markay maxkamaddu dhageysatay doodii istifaacidii eedeysanayaasha markay maxkamaddu dhageysatay akhrisatay doodii qareenka markay maxkamaddu aragtay qiraalka cadeymaha garsoore hortii looga qoray confession markii maxkamaddu aragtay cadeynta video laga duubay iyagoo qiraal ah markay maxkamaddu aragtay qoraalka baarista booliska CID gobolka Mudug markay maxkamaddu u cadaatay in eedeysanayaasha ay galeen dambiga lagu soo oogay markay maxkamaddu aragtay culayska dambiga ay leedahay markay maxkamaddu aragtay sharciga iyo xeerka loo gafay xeer lambartan qodobkiisa labaad firqadiisa koowaad shawr maxkamadeed kadib waxay maxkamaddu ciidamada qaranka sida dambiyada culus Mudug iyo Cayn ku xukuntay eedeysanayaasha kala ah Faysal Axmed Bashiir Gujis ina mako Sheekh Suufi 31 jira ku dhashay gaalkacyo shaqada Faryaamo Sahal Abdullaahi Maxamed Jaamac Abdurrahmaan ina booseeyo Axmed Weheliye 32 jira ku dhashay Laan Madow degan gaalkacyo shaqada Darawal Idris Maxamed Afyare ina Dahabo Maxamed Ibrahim 25 jira ku dhashay Muqdisho degan gaalkacyo shaqada dukaanle Salmaan Maxamed Saleemaan Abdulqaadir Alfarisi ina Sonkori Aadan Xasan 26 jira ku dhashay Baydhabo degan gaalkacyo shaqada Fornaroti jaamac muriidi xuseen maxamed ina batuulo axmed maxamed 20 jira ku dhashay buulo mareer degan gaalkacyo shaqada bajaajle dil toogasha iyadoo maxkamaddu u cuskatay qodobka xeer lambartan firqadiisa labaad qodobkiisa labaad firqadiisa koowaad iyo shariicada islaamka waxaan xasuustaa 4 dil qofka ugu horey waa aan geysan asin wuxuu ahaa Kamaaldiin dhabarkeeda meesha faarada nin yiraahdo asagana Xasan Yare dilka labaad aan geysan asin wuxuu ahaa Maxamuud Cismaan oo lagu dilay masaajid Tooba intuu dhexeysay gurigiisa toddoba qof ka mid ah hadda xasuusto toddoba qof qaybna waa garanaya qaybna xoog hadda magacyadoodii hadda kor ka hayn magacyadoodii iyo waxay ahaayeen aan kor ka hayn sababta aan ku sheegayo oo marka hore lagu dirayo ninka ilaaliyaha waa qofka magaciisa iyo loo sheegaya hadii kale hadda lagu sheego duur qofku noqon karaa duur waadka noqon karaa ما أدري الله لكن وحلو شيء قفك مركز أول قل كله ومجدية بالو شيء هل هي مقاس ما اشتكى